السلام عليكم أصحابتي دقالي وكسو دواada يوتيوب channel دكتور إذن محمد maanta waxaan idin wadaagayaa mowduuc muhiim u ah gabdhaha Soomaaliyeed isla markaana aad u anfacayo xubintaada taranka si caafimaad leh ma u urtaa iyo noocyada urta ay leedahay xubinta taranka iyo waxyaabaha sababo haddaba xubinta taranka way noocyo badan tahay urta ay leedahay hadbana waxay ku xiran tahay xaaladda ay gabadhu ku sugan tahay isla markaana keento urta koowaad waxaa loo yaqaanaa urta malayga ama sida malayga oo kale sidoo u soo uro ur sidaas oo kale leh urtaas badanaa waxaa keeno gabadha in ay xanuunsan tahay infection ay qabto sida bacterial vaginosis bacteriadaas marka waxay sababaysaa in ay gabadha lahaato ur sida malayga oo kale badanaana waxaa la socda calaamado kale sida cuncun yar iyo inay kaadida gubayso oo kale ama qoyaan ay leedahay urtaasi laba waqti ayaa la isku arkaa marka ay gabadha kaadiso oo kale inay u soo urto iyo marka galmo ay samayso kadib in ay urtaasi isku aragto waxaa marka muhiim ah in ay gabadha xaaladeeda ka warqabto isla socoto urtaasi marka isku aragtana ay la xiriirto dhakhtarkeeda si daawo loogu qoro bacterial vaginosis gabadha marka ay qabto ama ay ku dhacdo sida u jeedin normal vaginal mucosa qaybtan koowaad dhibcaha buluuga ah waa bacteriada normalka vaginaha loogu baahnaa halka qaybtan kale markay gabadha bacterial vaginosis ay soo gasho ay noqonayso in ay labadii isku dheelitirnaan waayaan qalqalna uu meesha iska dhaco sidaasna urtaasi u samaysmato urta labaad waxaa loo yaqaanaa urta birta sidee usoo urto ama maarta oo kale badanaana gabadha waxay isku aragtaa xiliyada caadada oo kale caadada kadib ama ka horkeed ama waqtiyada umusha ay tahay amaba galmada hadduu dhiig uu kaga yimaado oo kale hadafka ama muhiimada urtan birta loo dhahayna waxay tahay dhiigga wuxuu ka samaysan yahay iron sidaa darteed isbedel ayaa meesha ka dhacayo urtaasina sidaas ayay ku samaysmataa badanaana urta noocaas oo kale way iska dhamaataa markay gabadha caadada ka qabaysato ama waqti yar laga soo wareego urta saddexaad waxaa loo yaqaanaa urta qarmuunka ama zaa'idka u daran urtaasi badanaa waxaa keeno gabadha in uu tambooniga ku daaho waqti badan uu ugu jiro haddii uusan xitaasan lahayn dhiig inay isdhahdo tamboonkaaga waa nadiif taasina waxay keenaysaa tamboonkii inay bacterial meeshaas ay ka dhalato bacteriadaasna ay keento ur qarmuun amaba marmarka qaar inay dhacdo gabadha in tamboon lagu soo hilmaamo waqtiyada qaliinka oo kale ama waqtiyada dhalmada oo kale ama faashadaha qaar xitaa in gabadha gudaheeda lagu soo hilmaamo waxyaabahaased oo gudaha gabadha lagu soo hilmaamayo waxay keenaysaa ur aad u daran oo loo yaqaano urta qarmuunka urtaasina ma baaba'do ilaa iyo waxyaabaha gudaha ku jiray laga soo saaro isla markaana meesha laga nadiifiyo urta afaraad waxaa loo yaqaanaa urta kiimikada waa ur aad u adag sida kiimikada ama aashitada ama waxyaabahaas oo kale u urto waxaana keeno kaadida waqtiyada gabadha ay kaadinayso kale in ay waxyaabaha underwearka ama kastuumada ama nigiska ay kaadiyar kaga soo hirto amaba xubinta taranka meelaha godadka ama luuqyada in ay kaadida si fiican u dhaqin oo kale kaadida waxaa ku jirto maado adag oo badanaa loo yaqaano ammoniadaaseytan waxay leedahay strong order ama ur aad u adag oo ka turjumayso urtaas waxay ka turjuntaa biyo la-aan in ay jirto ama dehydration haddaba marka hadduu qofka kaadida si fiican iskaga dhaqin amaba kastuumadiisa ay wax ka gaaraan oo kale ama waxyaabahaasi waxay keenaysaa urtaasi aadka u adag oo kiimikada loo yaqaano badanaana nadaafada iyo hygiene-ka ayaa looga hortagaa ama lagu daaweeyaa urta shanaad waxaa loo yaqaanaa urta qamiirka ama waxyaabaha la qamiiriyo sidee u uraan oo kale ama wax qamiirsan rootiyada qamiirka leh oo kale iyo waxyaabaha qamiirsan badanaana waxaa keeno urtaasi cudur loo yaqaano trichomonas vaginalis waxaana sidoo kale ku ogaanaysaa oo kale calaamado kale ayaa la socda sida in qoyaan caanaha oo kale u eg oo kale inuu la socdo cuncun daran xanuun waqtiyada galmada oo kale badanaana marka calaamadahaasa la socdaan urtaasina waxaa lagu daaweeyaa qofka inuu daawooyin qaato oo dhakhtarkiisa la xiriiro urta lixaad waa urta ugu dambeyso urta caadiga loo yaqaanaa waa ur normal ah badanaana waxaa la arkaa waqtiyada exercise-ka la sameeyo ama qofka uu aad u dhidido waa ur normal ah waxaana loo baahan yahay waqtiyadaas oo kale inaa hygiene-kaaga nadaafadaada aad u samaysid ama u wanaajisid haddaba waxaa hadda idinla wadaagayaa
sidee looga hortagi karaa urta aanan caafimaadka lahayn xubinta taranka ee samaysato. Badanaa waxaa lagula taliyaa qofka in uu xirto kastuumooyinka kotonka ah amaba suufka ka samaysan, uu iska dhaafo kastuumooyinka bacda oo kala. Googarada inaadan toos u xirnin googarad sababtoo ah waa maro kulul, biyo badan inaa cabtid, biyaha badan sidoo kale inaa maalintii markaa soo kacdid 1 koob oo biyo ah ku darsatid qal, 1 qaando oo qal ah. taasina waxay sameynaysaa caraf ama udgoon fiican inay u sameyso. waxaa jira sidoo kale kaniini loo yaqaan probiotics. Probiotics waa bacteria loogu talgalay normal xubinta taranka, isla markaana waxay balance ka dhigtaa pH-ka iyo sidoo kale bacteriyada aanan loo baahnayn ee fajeenaha soo weerarayso. qodobka kale ee u dambeeya inaa isticmaashid waxyaabaha fruitiska sida canabka, cananaaska, qaraha, waxyaabahaas oo dhan waxay ka caawinayaan carafta gooni ah inay kuu sameeyaan. mar walbana aad isticmaashid waxyaabaha lagu nadiifiyo keerka ah ee lagu daneeyo xubintaasi. waxaan rajeynayaa mawduucan inaad ka faa'iideen. waxyaabaha aad jeceshiin inaad kaga faa'iideeyo waxay igula wadaagi kartaan qaybta commentiga. aad ay u mahadsantihiin asxaabteeda qaaliga ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.